طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب ربك في الفؤاد تمزقا يا أمتي القرآن حبل نجاتنا فتمسكي بعراه كي لا نغرق طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظين كتابه حقا فكن بصفاتهم متخلقا يا حافظ القرآن رتل آيه فالكل أنصت للتلاوة مطرقا يا حافظ القرآن لست بحافظ حتى تكون لما حفظت مطبقا ماذا يفيدك أن تسمى حافظا وكتاب waxay inoo tahay farxad aad u weyn haddaan nahay bahda Global Health Science College inaad nagala soo qayb gashaan waqtigiina qaaligaana aad u hurtaan inaad nagala qayb gashaan xafladda qalin jabinta ee dafcadda labaad ee dugsiga ama college-ka ka qalin jabinaysa maanta ay taariikhdu tahay 29 July 2021 kana noogu qabsoomi doonta xaflad collegekan sidii magaciisa aad maqasheenba waa Global Health Science College waxaa la aasaasay bishii August 2019 dufcaddani waa dufcaddii labaad inkastoo ay jireen oo collegeku markii hore uu lahaa campus ka horeeyay kan magacana magac ka duwan uu watay laakiin Global Health Science intuu la baxay college waa dufcaddiisa labaad collegekani waa college gobol ku soo kordhay haddana shaqeynayay sanadkii saddexaad ay u soo gashay waa college bixiya culuum kala duwan ay ka mid yihiin culuumta xisaabta luqadaha iyo caafimaadka waxaa runtii ka qalin jabiyay baan oran karnaa kumanaan arday marka la isku daro waa college runtii bulshada ku soo kordhiyay waxa weeyaan arday tayadooda aad u sareyso bulshadana laga arko midhaha markaas ay ku dhex leeyihiin ama waxa weeyaan tayada ay bulshada ku dhex leeyihiin ardadan ka qalin jabinaysa maanta college-ka waxay isugu jirtaa laba qaybood waa qaybta luqadaha ama luqadda Ingiriiska iyo qaybta xisaabaadka waxayna ka kooban yihiin 90 arday waa dufcad runtii waxay soo dhiganayeen muddo 2 sano ah waa dufcad runtii waxa weeyaan la soo barbaariyay la soo tababaray aqoon badan runtii lagu soo shubay baan oran karnaa waa dufcad runtii u diyaarsan inay maanta ka qalin jabiyaan cilmiga ay barteen Global Health Science College oo ah runtii marka aanu fiirinay ka macallimiin ahaan iyo ka dhaqaatiir ahaanba meelaha ugu fiican ee soo saara arday tayadoodu ay aad iyo aad u sareyso oo birito waxa tiin midhaha gobolka u soo baxaya dhammaan meel kasta joog ama global ka bax
ama kolleejyada kale ka bax ama jaamacadaha gobolka noocay doonaan ba ha noqdaan ka bax waxaan doonayaa biri dadka aan ku xisaabtamaynaa waa idin adka iyadoo aan ku hadlayo afkii waalidiinta waxaanu u mahad celinaynaa haddaanu waalidiinta nahay magac kastaba ha la baxeene bahda waxbarashada ee qaabkan wax u soo habaysay ee dhallinyarada soo barbaarisay ee meelaha muuqanaya soo gaadhsiisay waa u mahad celinaynaa waxaanu la leenahay tacabkiina ilaahay ma khasaareeyo waxyaabihi aan gobolka uga faa'iideynay ama aanu qabannay waxaa ka mid ah MSH training aan qabannay sanadii 2020kii bishii 3 ayaan qabannay sidoo kale waxyaabihi aan qabannay waxaa ka mid ah nutrition oo sida training ahaa waxyaabihi aan uga faa'iideynay gobolka waxaa ka mid ah research methodology qaabka loo qoro buugga qalin jabinta kaasoo aan uga faa'iideynay dhammaan ardayda jaamacadaha dhigata khaasatan ardayda jaamacadda Nugaalo ka faa'iideysatay insha Allah ta'ala hadda waxa dhigta college-ka qaybta caafimaadka oo diinka ka hay arday nursing oo 4 class midwifery iyo nutrition insha Allah ta'ala qaabka u dhigtaan waxaad ka dheehan doontaan markay soo baxaan aqoontooda kulaamkooda waxyaabahaas oo aad u dheelitiran runtii aan xoogana saarnay si ay u qaadan lahaayeen practicalka meelaha ay practical ku qaata waxa kamid ah gargaar hospital waxa kamid ah Las Carood Medical Center waxa kamid ah muxuu ahaa college-ka dhexdiisa meelaha ugu badan ay ku qaataan practicalka magac teachers or great teachers those who have done for us or gathered us or helped us together here in this beautiful ceremony today. I want to conclude without prolonging my speech. aniga oo soo koobaya maadaama luqadii Englishka laga hadlay caafimaadkina laga hadlay luqadeena xisaabta runtii xisaabta waxaan ku tilmaami karnaa luqad lagu wada hadlo oo qof walba fahmi karo qof kasta oo ma maxay xisaabta waa maxay wax uga baxsan yihiin luqad baan ku tilmaami karnaa waxa weeyaan luqadda xisaabta Soomaalida hore uga mahmaaday waxay tiri xisaabi xilmale hadaan la xumayn marka waxaan rabaa inaan bayaamiyo xisaabtu waa maxay maxaa laga aaminsan yahay ama waa maxay maxaa laga aaminsan yahay qof markuu banaanka joogo xisaabtu dadku markay banaanka joogaan waxay ka aaminsan yihiin inay tahay mid adag laakiin waa maxay qofku markuu dhex galo sida ardayda maanta qalin jabinaysa hadii fikirkooda la weydiiyo la yiraahdo xisaabta maxaad ka aaminsan tihiin runtii waxay ku jawaabayaan xisaabtu waa maxay xisaabtu adeeg ma leh dardaaranka ugu dambeeya ee aan siinayo ardayda maanta qalin jabinaysa waxa weeye cilmiga aad maanta barateen sidoo u noqon lahaa mid in anfaca ama waa maxay mid mid dhala sidoo u noqon lahaa waxa weeyaan talada ugu weyn aan siinayo waxa weeye maadaama aan ahay maanta dhalinyaro runtii aan idinka warrame waxaan ahaa ardaydii college ka baxday 2 sano ka hor ka baxay baan ahaa intuusan noqon global ee ahaa gateway maantana aan ahay macallin ka tirsan college-ka wanaanaya ardayga dhigtay iskuulka caadiga ah waa inad isaga wuxuu helay extra time buu helay xisada dheeri uu helay wuu isdhisay wuxuu iska dhisay maadooyinka xisaabtii luqadii caafimaadkii saddexda maada hadaad ka dhisto you will be good successful insha Allah ta'ala waad guulaysan doontaa maanta halkan anigu waxaan u taaganahay kaliya inaan la qaybsado farxadda ardayda qalin jabinaysa waxaan leeyahay congratulation hambalyo waxaan idinku hambalyaynayaa guusha aad maanta gaadheen waxaa jira arday fara badan oo runtii aan ka faa'iideysan fursadan idinku maanta waxaad taagantiin inaad ka faa'iideysateen waad u adkaysateen waa u dhabar adeegteen waa u soo samirteen dulqaadkeeda aad yeelateen maantana waxaad tihiin dad gaadhay guul achievement mar haddaad gaadheen waa in laydigu hambalyayaa adiga laftirkaagu naftaada aad ugu hambalyaysaa aad waxa weeye ku faraxdaa aad la qaybsataa dadka waan idinla dardaarmayaa ardayda maanta halkaa ka qalin jabinayso waxaad leedihiin mustaqbal wanaagsan waxaad leedihiin muxuu ahaa aayo wanaagsan oo wax badan aad ku hagaajin karaysaan aqoontii aad ku soo tacabteen ee maanta halkaa aad joogtaan idin soo gaarsiisay
ogaada waalid baa idinka dambeeyey waalidkaasi waxay ku soo dadaaleen oo idinku soo garab qabteen inaad soo gaartaan meesha maanta aad joogtaan waxaad u baahan tihiin abaalkooda inaad guddaan waalidka abaalkiisa lama gudi karo laakiin ilaa iyo xad inaad ku dadaashaan sidoo kale macallimiin baa idinla soo dadaalay oo juhdi idinku soo bixiya waqti idin soo geliyey inaad iyagana u abaalguddaan macallinka maxaad ugu abaalgudi karaysaan marka macallinka wax ku baray wuxuu abaalgudkiisa wuxuu noqonayaa marka aad aqoontii uu ku baray aad noqoto qof ay ka muuqato waxaa la yidhaahdaa aqoonta keligeed waxba ma tarto marka waxaa loo baahan yahay aqoon iyo adeegsi inaad aqoontii aad baratay aad adeegsataad u baahan tahay haddii laakiin aqoontii aadan adeegsan karaynin wax faa'iide ma yeelanayso way igu soo darbaan kuri iskuulka laftigiisa iskuulka way ii sheegtay maasha allah ilaahay idin xafido waxaan idin leeyahay waxbarta dadkana wax ku soo kordhiya alfurqaan iyo guud ahaan aad baan ugu faraxsanahay oo aan ugu faraxsannahay juhuudda iyo dadaalada uu college-ku wado global oo dhinacyo badan taabanaysa luuqadihii iyo xisaabaadkii iyo caafimaadkii iyo dhinacyo badan waxbarashada kolleejyada ahayna in badan tarkiiskeeda ama waxa ay xoogga saarto waxaa laga yaabaa in ay tahay waxyaabaha ay dadku ku kala horumaraan adduunka waxyaabaha aadka loo daneeya waxaa ka mid ah qofku inuu yahay qof xirfada leh skills ama mahaaraad waxa la yidhaahdo oo aqoonta guud aad baratay mooye xirfado nololeed oo kuu kaaba aqoontaadaana kuu xoojiya lagana yaabo xataa mararka qaarkood iyaduba inay kuu noqoto professionkaaga ama shaqadaada ay kuu noqoto qofku inuu barto waa muhim waxaan marnaba ku jirin oo dhaqankeenna aan ka mid ahayn qofku inuu noqdo qof caajisahoo waxba aan ka qayb qaadan oo laga yaabo waxbarashada asaasiga ula socdo xataa inuusan ku fiicnayn rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ixris calaa maa yanfacuk wastacin billaah walaa tacjaz ku dadaal waxa ku anfacaya ilaahayna kaalmayso hana caajis maxamuud waxaan ka tirsanahay ardayda dhammaysta global health science college ugu horreyn waxaan u mahad celinayaa allah subxaanahu wa tacaala kaasoo isuukan keenay makaan xafladeedkan aadka quruxda badan mar labaadka waxaan u mahad celinayaa dhammaan marti sharafka kala duwan qaybaheeda kala duwan kuwaasoo kasoo qaybgalay xafladeena waxaan halkan isu soo taagay inaan kasoo jeediyo gabayga waxaa tiriyey abwaan khaliif faarax xayir wuxuuna ku bilaabanaya sidatan dharaarba warbay sidaa dhabaal weeyaan waqtigu rajadu guushay dhashaa caqligu waa dhaamiyaa dhaqaaluhu waa cilmiga markaan dhanka wacan ka dayo dhaliishu waxbay saxdaa adkaysi haddaad u dhalan afeeftaa lagu dhaqmaa runbaa qowl lagu dhigmaa been baan weligeed lib dhalin nafsigu wuu soo dhaxaa dhagxumo waa laga durkaa sharaftu waa dhowrashada waqtigu waa dhowr wajiile mar buu dhool kuu curtaa dhijaamuhu biyo tufaan dhirtuna ubaxaysataa mar buu kula dholon rogmaa cirkuna dhibic joojiyaa dhulkuna engegaa abaar waqtigu waa dhabanahays dhib iyo waa khayr isxigan nin dhalan iyo waa nin dhiman ogow waa yeelka dhacay mar buu dhalinyaro ahaa dhaqsuu u socdaa waqtigu cadceed subax soo baxdayo libdhada gelinkay dhacdaba wadkaad u dhowaanaysaa ifkaad ka dhammaanaysaa dhabtuna waa aakhirada dhankaa waxaan uga socdaa wax dhacay dhaafoo ka gudub waqtigu yuu kaaga tegin dharaaro doraato tegay u yeelo dhugsaa dambaa dhigtiyo tara kaa rabtee taariikhda dad baa ku dhigan dad baa inagu dhex nool waxaad dhulka uga tagtaa xasuus iyo waa dhigaal dhashaadana waa u kayd adoo dhaxal reebi kara ha noqon dhinto aan la tabin noloshu way dheelidaa bad bay dhex jibaaxaysaa marbay dhan u ciiraysaa marbay dhab u toosaysaa dharaartay kugu xuntaay weynaha sacabada u dhigo ilmada dhabanada ka tiro dhabarka murugada u rido dhexdana himilada u xidho fulow guuli waa dhowdee rajadu yay kaa dham magacaygu waa samiiro bashiir xaaji axmed ka mid noqotay ardayda maanta halkan ku qalin jabinaysa waxaan salaamayaa dhammaan marti sharafka noocyadeeda kala duwan waxaan kaloo salaamayaa maamulka sharafta leh macallimiinta dhammaan kolleejka ka tirsan waxaan u mahad celinayaa awalan
waxaan u mahadcelinayaa alle subxaanahu wa tacaala isugu keenay madashan quruxda badan kulmiyey dhammaanteen intaynu tiro leegnahay caafimaad qab isugu keenay waxaan rajaynayaa inaad dhammaantiin faraxsan tihiin sidoo kale anna waan ila faraxsanahay waxaan halkan uga mahadcelinayaa hooyaday macaan lambar 1 dhiirigeliyahayga koobaad ahayd lambar 2 waxaan u mahadcelinayaa xaajigayga garabkayga taagan Cabdulaahi Aadan jaamac Allaha karaameeyo inta uu iyo karaameeyay ama garab istaagay waxaan iyagana u mahadcelinayaa mar labaad iyo mar saddexaadba maamulka macallinkayga qaaliga Maxamed Cabdulaahi aw cilmi Maxamed waxaan ka tirsanahay arday. Today I would like to share my view about importance of education. Education is man's best friend. It is a tool which helps to simplify lot of hard tasks in our life. An educated person is respected everywhere. Today education is required in all fields of life. It is important to be well educated. If one aims to become engineer, lawyer, doctor, or held any such respectful position, good education is the foundation of a better future. It helps to develop overall personality of a person. It helps to improve status of mind, body, and incentive. Education helps us to take right decision. It is the key to success. I would like to mention the word of the great political leader, Mr. Nelson Mandela, that education is the most powerful weapon which you can use to change the world. I wanted to conclude my speech. Allah says in Holy Quran, هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. نستعين على نور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد. وقارين الله سبحانه وتعالى أيام هذا سكلا يسوق كان مدشون غرفة بدن. ما هذا الله يكذب وحنا ما أدعلنا يا مام الكم معلمين تقول لك والدين ته يوقف مرتي شرف تقييمها بدن يوقف كستيو هالكم فرديا. ما هاد كذب وحنا كل سلامة يوقف والبه هالكم فرديا مقعي ماموس كوكو فرديا مدشتن. أنت كذب مقعي ونجح محمد وحنا حلفدن كقيب قادن لها برامبر isdhagaysi wacan waxaan rajaynayaa daqiiqadan in hor taaganahay inaad ii dhagaysataan si qurux badan buraanburku wuxuu ku bilaabanayaa sida tan ayo balaayo hadaba obalaye hadaba ay ma baalo qoraayay mawla la tuugsadaa ay ma hadmaanteed macbuudkanu celinayaa ay maxamed nabigeeni baan ku saliyay salaam assalaamu calaykum soomaaliyey dhammaan assalaamu calaykum safsaf baan idinka maray isareeyow maamulkaygan salaamayaa oo dhammaan martidayda sare baan salaamayaa سلام تبذتنا ما هاد بانو علينا يا اي ما هاد اله ويا سيد اي ما انت ماذا شو تهي اي ما بالقرا اي مول اي ما هاد اله ويا سيد اي ما انت ماذا شو تهي اي علمي قواتير كادمه كتاغن يحي واتغوغو ننكي لا تلاب سنكرا اي هدان لا تحقلين لغو تامير يوين اي هميغا لغو تيرين هاليس باكتين نتال اي علميغا هلا تابقالي اي هلا ترتمو اي دادكان توق سنايا قالكي قوحون تتاقي اي قاليدا الله توبنا اي عاد توبن اينا اينو تالينو ايناغا يكتين نتال ay galabal daladaydi ay balalaga xijaab ay waxa tahay dalad barwaaqon la beegsan karin ay bahdanu jeceshahay ay baydkeedu yahay tacliin ay waa lagu bogay ay bisinka lagu hayaa ay allah barakeeyo maamulkani soo bandhigay ay allah barakeeyo barayaasha sharafta mudan
iyo allaha barakeeyo bulshadii ku soo aflaxay iyo allaha barakeeyo kuwa maanta baranayana ustaad calikiin ragga faraha badan la shaqaynayana waa u mahadnaqannaa waayo waxay soo saarayaan warshad ayay gacanta Today I would like to hadda ardayda qalin jabisay ilaa 3 dufcadood bay ka kooban yihiin oo 3 qaybood oo cilmiga ka mid ah ay qalin jabinaya qaybo kale oo badanna waa u harsan yihiin qaybo horena way ka soo qalin jabiyeen halkan waxaan ka wadaa cilmigu inaga ku nool isagu ina kuma noola inagu waxayna taray isaga wax ma taro waxaan idinku wada salaamay salaan ka soo go'day qalbiga guntiisa midabkeedu yahay xinjir cas udugeeduna uu yahay cadarka miskiga taasoo ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanan ku diray dabayl udgoonkeeda wadata qof walba waxaan ugu diray booshiishankiisa mahad idil ahaanteed gebi ahaanteed waxay u sugnaatay allihii ina jamciyey ina yeelay howlkan aadka u quruxda badan inaynu farxad ku wadaagno halkan istaagidaydu waxay ka turjumaysaa haddii ilaahayba kuu roon yahayey inaan ku hadlo afka ardayda hadal oo ardaydaasoo dhan haddii la weydin lahaa aan idiin wadaa madanayaal iyo marweyn hadalkaasi haddaba muxuu yahay waa qeexidda iyo isla meeldhigidda global health science college waxay tahay haddaan isku dayo inaan qeexo waa il macaan ay ka burqanayaan cilmiyo kala duwan sida health maths iyo english cilmiyadaas ay kaa jaahil saarayaan kula garabgelayaan macallimiin takhasuskeeda leh haddaba maqashay global health waxay tahay haddaad ka qatan tahay waxaad tahay haddii ilaahayba kuu roon yahayey haraadana jooga dul jooga ceelka samsamka ama gaajaysane hoos fadhiya geed timira وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته في الأنبياء والمرسلين وبعد همبليو أرضنا وحنا لو داعنا فرحة ما أنت يكون شران أرضنا وحنا لو داعنا فرحة ما أنت يكون شران حقيقة فرحة دريم صار مثل ميدان دريمنا وحلينا هاي الله سبحانه وتعالى علمي عبرتين هذا نكون أنفعه inay shaqayso taladeedu ugu horeysa waxa weeyaan hadda waxaad bilowdaan inaad ku shaqaysataan aqoontaad barateen laana waad u qalantaan taas waa qodobka labaad aan tilmaami lahaa waxa weeyaan magaaladeenu iyo gobolkeenu waxay u baahan yihiin in loo sameeyo markas thaqaafi ah in loo sameeyo maktabado way jiraan markaskaasi wuu ka gudan weyn yahay maktabadii diiniga ahayd oo ugu horeysa oo ku jirta maktabadii maadiga ahayd oo ku jirta laababkii iyo shaybaaradii oo ku jira qaybo kala duwan hool noocan oo kala ah markay nabadu noqoto iyo in nabad laga shaqeeyo nabadaynu kaga shaqaynaynaa markay noqoto in lagu horumariyo waxbarashadii shararbaynu ku gelaynaa waxbarashadii baynu ku horumarsanaynaa markay noqoto in deegaankii iyo xoolihii laga hadlana waxaynu kaga shaqaynaynaa xoolihii wix la midka ahaa markay marti inoo timaado martidaynu geynaynaa members baynu u samaynaynaa idinku aad qayb ka tihiin waxaynu markaa aad ugu baahannahay oo ay tahay taladeeda labaad qof kasta oo innagayna ka mida oo bulshadeenna ka mida dadka hadda xaruntan ama goobtan ku sugan iyo dadka ka maqanee warkani gaadhi doonaba waxaynu u baahannahay meel aynu ka horumarino xarun ama markas thaqaafiya oo bulshadeenna qaybaha kala duwan aynu ka horumarino baynu u baahannahay waxaynu u baahannahay inaynu inagu qaadhaamanno inagu urursanno inagu dhisanno kadibna aynu midhaheedii aragno oo ardayga dugsiga hoose ku jira iyo qofkii jaamacadda ka soo qalinjabiyey ay isugu yimaadaan talada gobolkuna ay halkaa ka go'do oo horumarka ah waxaan kaloo u baahannahay dugsi farsamo gacmeed baynu u baahannahay dugsiga farsamada gacantu wuxuu soo kordhinayaa hadda decorationkan iyo waxyaabahan la midka ah ajaanib baa xidha carab baa xidha rag dadkeen dhallinyaradeenna ka mida haddii la bari lahaa waxbay qaban lahaayeen inay shaqayso
طوبى لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات